بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalayaal aad iyo aad baan inii salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waa inii salaamayaa. Waxaan halkaan maanta aan rabaa inaan idinkaga waramo arrin aad iyo aad iiga farxiyey oo ah weligii anigu Soomaaliyana kama hadlin, Somalilandna kama hadlin. Ummadda Soomaaliyeed wax wanaagsan haddaan u sheegi karana waa u sheegaa, haddii kalena xumaantooda inaan faafiya waa igu waajib ma ah. Cid kasta oo muslimnana xumaantooda inaad ka shaqaysaa waa shay mustaxiil ah. Marka waxaan rabaa inaan kala hadlo halkaan Somaliland, walaalaha iyaga Somaliland, waqooyiga Soomaaliya wadankii la oran jiray haatanse la magac baxay Somaliland oo sheegay in ay ka go'een Soomaaliya. Arrin aan idaacadooda telefishinkooda ka arkay waa wax lagu farxo laguna daydo. Aad iyo aad bayna ii soo jiidatay horumarka ay gaareen, wanaagga ay gaareen, siday wadankooda u dhisteen ama seba ayba uba ilaalinayaan nabadgelyadiisa. Waqtigan oo ummadii oo dhan isku soo wada duushay oo ummad walba la doonaya in la burburiyo, waxay ogaadeen wadankoodii dhaqaalihii dadkooda, dhaqaalihii ummadda Soomaaliyeed. Ummad badan oo Soomaaliyeed baa dhaqaalahoodu halkaas dhaqaale u yaala ama ka baayac mushtara ama dhaqaaluhuba uu ka wada dhexeeya. Marka sida ay uga hortageen dadkii forgery-ga sameynayay ama shaba doonayay in ay forgery ama taswiir ama lacag been abuura, sidii aad doonaysidba u garo. Dadku jiilasha dambe qaar badan baan garanaynin af Soomaaliyada, ay wadamo shisheeye ku dhashay oo aanay fahmi karin luqadaha qaarkood. Marka lacagtu waa lacag taswiir ah, la sawirayay ama forgery oo la forgery gareynayay ama been abuura oo loo ekeysay